السلام عليكم. فيديوغينا maanta wuxuu ku saabsan yahay cashir cusub oo isla derivative product rule. Okay, waa maxay qaacidadan cusub? saan ay u dhici doontaa. waxaa haysataa laba function f iyo g. waxaa ku dhahay laba function oo isku dhufsan derivative ku sameeyo. qaacidada waxay dhahe functionka koowaad aad derivative ku sameyne waxaa ku dhufanaya g, functionka labaad adoo derivative ku sameyn lagu daray functionka koowaad adoo derivative ku sameyn waxaa ku dhufanaya kan dambe oo derivative ku sameyn. laga yaabo qaacidada sharaxeeda inaana wax saas ugu fahmin, laakiin example aad ku fahmi doontaa. Okay, examplekan bal aragno. waxaa haysataa laba cashir. Okay, laba function oo kala duwan. waxaa ku dhahay x square lagu dara hal waxaa ku dhufataa x. saa hore u aragtay functionka koowaad waa f, kan labaadna waa g. Okay, marka f waxay la mid tahay x square lagu dara hal, g wuxuu la mid yahay x. ku dhufashadaas aa u dhexayso. marka kan koowaad waa kan waa f, kanna waa ga ama g. okay, saa ugu shaqaynaynaa. waxaa haysataa x square lagu dara hal lagu dhufto x, derivative ku sameeyo. marka saa hore ugu macneeyey g f aa haysataa, okay, saa hore ugu macneeyey qaacidada waxay ahayd f derivative lagu dhuftay ga lagu daray f lagu dhuftay g derivative. f derivative iska fududaa u jeedin waa 2x, g derivativena waa hal. marka waxaa isticmaalaynaa qaacidadan f derivative taasa waa 2x lagu dhufta g oo x ah lagu daray f oo ah x oo laba la kordhiga lagu dara hal lagu dhuftay g derivative oo hal ah. jawaabtaa waxay isku bedeshay markaas 2x laba la kordhiga lagu daray x square lagu dara hal. labadana isku darsantay waxay noqotay sheekada 3x square lagu daray hal. waa taasaa jawaabta. okay, halkan meesha uuna ku dhuftay wax macno oo leeyahay male. example labaad. okay, kan kastoo yaris ka adkay doonaa x waxaa ku dhufanaya markaas x square lagu daray 4x. okay, waxaa ku dhaha derivative ku samee. waa ujeedaa ku dhufashadaasaa u dhexayso. functionkan waxa waaye waa f, functionkanna waa g. f waxay la mid tahay x to the third lagu dara x, g-na waxa waaye x square x oo laba la kordhigo lagu dara 4x. qaacidadeena maxayna fare functionka koowaad derivative ku sameysa g aa ku dhufanaya f, markaasaa g derivative ku sameynaya. f oo derivative aa ku samaysid waxa waaye 3x square lagu dara hal, g aa derivative ku samaysidna waa x 2x lagu daray 4. f derivative xaggaasi ku qoran tahay waxa waaye 3x laba la kordhigo lagu dara hal lagu dhuftay g kastoo yara boobsiinoyaanii qaboojina hawsha sheekada. okay, examplekeena saas ahay.
aan ku bilownay x oo 3 la kor dhigay lagu daray x lagu dhuftay x square lagu daray 4x. okay, functionkan waxaan dhahay derivative ku sameeya, marka wuxuu la mid yahay sidaa helay f oo derivative waa aragteen waa 3x laba la kordhigo lagu dara 1 3x laba la kordhigo lagu dara 1 waxaa ku dhufanaa g-na waa ogtihiin waa kan x square lagu dara 4x saa hore u sheegna g-tana markaas qaacidada waxay dhahe lagu daray hadda waxaa dhammeynay qaybtan keliya qaybtana marona f waxaa waa x oo 3 la kordhigo lagu dara x lagu dhuftay ga oo derivative waa 2x lagu dara 4 2x lagu daray 4. okay, hooshii san bay noqotay marka ma u baahnid inaa hore usii wadid hooshan marka xalaanay ku eg tahay marka qaacidadan way cusub tahay waxaa la dhahaa product rule marka fiiri ku celceli qaacidada waa tana videoga u fiirso labadan example nii sharxay ku celceli marka xisaabta waxaa waa mar walbo haddaan hore ka fahmin ha isdhiibin qof u dhasha male laga yaabo dad inuu ilaahay fahan higu u siiye laakiin dadkoo dhan waxay ka wada saman yihiin dadaal marka qofkii dadaalo ayaa horumar gaaro dadaal ku celceli xisaabta fiiri xisaabo dhan asaasa waxay rabtaa noqoto marka insha allah ilaah saqiirada waana ku mahadsan tahay daawashadaada